waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee aadan cabdulle cusmaan raashin dhacay oo ay leedahay hay'adda la yiraahdo WFP waxaan leeyahay haddii aysan xilliga u baahantahay in nasiin inay naga badaayaan aysan waxba nasiinin allan wuxuu uga baahannahay waddankanadu waa naga barwaaqo ah dad oo wax tacbada waa joogaa maxaa hal inuu soo aruuriya raashin la dhaca maxaa nolol keena deegaankan nololka gado haddii nahay beeraley nahay koonfurta beeraley nahay ganacsatii nahay wax kasta nahay galey waa heynay moordu waa heynay maxaa galey hoola dhaceen gaalada nagu soo aruurina arrintaas aad iyo aad aan ugu xunnahay in maartay raashin dhacay oo dadka Soomaaliyeed walaalahan ah loo keeno oo xilligii maartay raashinka oo ku maxboonay oo la dhiibin waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digayaa raashinka dhacay ee lagu wareejinayo degmooyinka oo lagu qaybinayo raashinka dhacay wuxuu ka qatarsan yahay xabadda dhaceedo maanta raashinka ayaa ka dhibaato badan rag wax magarada oo shar iyo wax raadsanayo ayaa kunturaad ku soo qaatay ma ka fikirayo naftaada ma ka fikirayo wuxuu ka fikirayaa soo guri villa ku dhisan lahay ambo baawur ku gada lahay waxaan ugu baaqayaa dawladda iyo hay'adaha ammaanka in arintaas ay dabagal dheer ay ku sameeyaan sida WFP iyo dadka shaqada lahaa in la soo qabta talaabada ugu horeysan ay qaadi karaan ay kamid tahay in la baara warehouse-yada iyo istoorada dhammaan WFP ay leedahay baaristiyaa socoto waxaan filaynaa in loo magacaabi doono oo xagga dawladda aan ka sugaynaa guddi heer wasiir ah ee arrintan baara